السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Soomaaliya waan salaamay meel kasta adduunka joogtaan bash iyo barwaaqa aan rajeynaya Soomaali weynay. Waxaan rabaa arrintii Isha Aziz inaan waxoogaa dib u soo celiyo aan waxoogaa falanqeeyo. Isha Aziz gabadha Sweden joogto maasha Allah. Sanadkeedii waa baryahan oo dhan baraha bulshada lagu haystay intaasaa jirta intaa ma jirtid aabeed wuxuu yiri iyo intuu yiri marna wuu hilmaamay marba wax la sheegayay marka halka waxaan rabaa inaan iga dhageysiiyo Cabdilaahi Sheekh Malada Cabdilaahi Macalin YouTube la codkiisa kolay badan baqashaan ma garanaysaan aan isla dhageysano siduu u sheegayo maasha Allah si fiican buu u falaqeeyay Isha Azizna qaladkeedii wuu tusay si fiican buu u falaqeeyay qaladkeediina u tusay maasha Allah meeshan waxaa la dhahaa social media wixii kaa galayna waa kaa galay marka videoga duubista waa inaad ka fiirsataa wixii qalada ka jar ama daysa asagoo hagaagsan mar labaad fariintan waxay ku socotaa Isha Aziz marka habar yar eedo marka waxaa samaysa wax markaa samaynaysid baraha bulshada way iska dhib badan tahay dhibkeeda badan waxaad ahayn baa lagugu dhajinaya views baa lagu raasanaya marka ka fiirso hadda wixii ka dambeeyo aad uga fiirso Cabdilaahi aan isla dhageysano ku qaldan tahay oo adiga aad samaysay oo falcelinteeduna maanta baraha bulshada dadku ay dhagaha qabsadeen saddexda arrimood marka waxay yihiin sanay la qoslayo waqti siinaya jaanis siinaya in iyadu qaladkan ay markii horeba ka dambeysay markii horeba qaladkan in Isha Aziz qaladka waa ka dambeysay markuu aabaha saa sheegisay qaldamay oo yiri waxaa dhalatay 1988 marka isla markaas la rabay in museyga ka qabatid aad raadid aabo waqtiga ma dhalan waqtigaas markaas la rabay musey aabaha ina saxdid waqtigaas ina saxdid baa laga rabay arrintii imaasixina waa iska aamustay mudday ka soo wareegtay heer waxay gaadhay hooyada intay soo fariisato 3 goor dhaarato marka baraha bulshada wareerkeeda iska badan adigana wixii ka dambeeyo is ilaali wixii dhacay way dhacay social media ku jiraan dad badan ba videogi qabsaday marka is ilaali bid'aadan baa tahay qalad waa dhici kara museyga wuu iloobi kara wax kasta waa dhici kara laakiin Soomaali baan nahay Soomaali waxba laga ma dhaadhicin karo Soomaali baan nahay meeshay ku dhagtayna way ku dhagtay ayada lahayd sida ay ku leedahay marka waxaan rabaa inaan idin la wadaago marka koobaad runtii waxa dhalay horta Aisho family aad u qurux badan oo runtii aad u fircoon aad u wanaagsan siiba aabaha markii anigaan arkayay maalintii ugu horreysay anigu aan arkay wuxuu ahaa waalidiinta aan sida aadka ula dhacay waalidku waxna waa ku qaldanaan karaa waxna waa ku sax maasha Allah Isha Aziz aabo labada hooyay aaboba labadad wanaagsan baa dhalay ilaahay cimri dheer cibaado leh Allah siiyo caruurtoodina maasha Allah way fiican yihiin waalidka markuu fiican yahay ubadkana ilaahay wuu hagaajiyaa waalidka hadday wanaagsan yihiin ubadkana way fiicnaanayaan laba waalid oo kala daran baa dhalay ilaahay waxaan leeyahay cimri dheer cibaado leh caruurtana maasha Allah ilaahay jidka san ah nagu toosiyo xasanaan kara sidana qofka waxa fiican dhanka wanaagsan in laga fiiriyo aabayntu caruurtiisa dhaxgala la sheekaysanaya la qoslayo waqti siinaya jaanis siinaya fursad aad u macaan caruurtiisii la qaadanaya haddana qurbo joogo runtii waa wax aad loogu ammaano oo aan isleeyahay aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay waayo waxaan ognahay waalidiinta qurbaha jooga in caruurtooda aysan fursadba u ahaynba cunugii oo hurdo u baxayo cunugii oo hurdana uu imaanayo halka maalin ee jaaniska ama labada maalmood sabtidii axadana fursadii caruurta uu siin lahaa
uu dad kale kusoo beegareenaayo ayaan ognahay waan la soconaa. So marka aabuhu hadduu fursadda carruurtiisa siinaayo runtii in lagu ammaano ayuu mudan yahay, waana ku ammaanayaa. hooyadana sidoo kale. Iisha Casiis runtii markaan xaggeeda usoo laabto oo arrinteedu aad baraha bulshada u qabsatay, waxaan isleeyahay 3 arrimood bay ku qaldan tahay. 3 arrimood ay ku qaldaneed waxay ahaayeen kow, aabbo markii ay la fadhiday oo ay wareysanaysay oo ama ay wada sheekaysanayeen, waxa uu sheegay 1988 inay Caaisha dhalatay. Caaisha way og tahay waqtiga ay dhalatay, iyadu way og tahay, way la socotaa sama. maadaama marka waxaan bara bulsho la soo gelinayo, aabbo waxaa laga yaabaa in taariikh ahaan wax qaldo. ayaan dhawata cali Americo safiirkii hore Soomaaliya ee waddanka Kenya waa arkayseen, wuxuu yiri waxaan dhashay 1990 1992 baan dhashay buu yiri. cali America de waa wada taqaana, waa safiirkii dhamma ee Soomaaliya ee waddanka Kenya uu metelay ama uu fadhiyay. waa la wareysanay, wuxuu yiri Muqdisho ku dhashay, waxaan dhashay 1992. waa wax dhaca, wax jira waa in qofku uu macnaha wax qaldo. bidaadan baa la yahay, waa la qaldami karaa, laakiin inay markiiba ayadana waxa laga yaabaa markiiba inay kasoo falcelisay tirada aabbo sidaan ma aha. waxaa u fiicneed markuu aabeed qaladku sameeyayba markiiba inay ka qabato. waqti baa kasoo wareegay. meeshana Soomaali baanu nahay, wixii hor yeeray un baa lagu dhagiya, sidii gaamkiiba dhakab la siisanaya. marka ka fiirso Iisha Casiis aad uga fiirso, habaryar aad uga fiirso arrimaha. laakiin Caaisha fiidiyowga qofka soo geliyay YouTube-ka ayada way suma inuu ereygaas uu qalad yahay markii ogaato. waxaa la doonaya inay ka reebto ama ay ka joojiso, ama markiiba ay saxdo aabbo oo ay tiraahdo aabbo ma 1988 baad ka wadaa mise 1998 baad ka wadaa, xataa ay dib u xasuuso ayaa loo baahnaa. ma aysan sameynaa, horey usii wadato. aabbo sidoo kale wuxuu yidhi waxaan ku dhalay aniga oo 19 jir ah, haddana 53 sano ayaan jira. farqiga qofka marka horta meesha raba inaan ka hadlo waxa weeye, meesha raba inaan ka hadlo odaygii wuxuu yiri waxaan ku dhalay Iisha Casiis waa curadiisii, waxaan ku dhalay 1900 yani waxaan ku dhalay waxaan ku dhalay anigoo 19 jir ah, ka soo qaad 20 jir. haddana waxaan jira 52. meeqa marka u dhaxaya, meeqa u dhaxaysa meesha waxa u dhaxaysa 32 sano, 20 ba iska dheh. 19kii haddaan 19 ka dhignana 33 jir bay noqonaysaa. 52 jiraa buu yiri. ayadana adigana waxaan kugu dhalay 19 jir. xisaabta Soomaalida aad bay ugu dheeraysaa. intii baa la isku dhuftay dhag wuxuu ku dhalay 19 jir. haye 19 jir buu ku dhalay. haye hadda meequu jira 52. haye meeqay curadiisa jirta 33. Soomaalida xagga xisaabta number 1 xisaabaha aad bay ugu dheereeyaan. intii bay xisaabsadeen. marka ayadana waxay tiri waxaan jira 23. marka aabahana wuxuu yiri 52 sanaan jira. adi khilaaf baa meesha dhex jira, laakiin qofka bidaadanka intuu sheegtay un baa loo raacaa. gabadha kolayba gabar weyn ma aha. qofka markuu weynaado maskaxda degto, markuu 30 gaaro 33 waa gabar weyn. marka hooyadeedna waa aragteen, kolayba meesha qalad baa ka imaanaysa. odayga wuxuu yiri 50 waxaan jiraa 2. waxaan kugu dhalay 19. marka waa ka uu niga sheekeynayay magaciisi aan dhageysan. ani intaaba waxaan ka dhageystay asaga inuu odayga iyo gabadha isla fariisteen sida sanadka u kala sheegayba ma dhageysan. Iisha Casiis un baa sheekadeedii hooyadeed markay soo fariisiisay taana waan ka hadlay, waan isu daayay, taa un baan arkay. Cabdilaahi wuxuu hayay ba odaygii intuu jiray, intuu gabadha ku dhalay, wixii oo dhan buu isu ka keenay. markaasuu dhahay gabadha meesha aad ba ugu qaldantay, waana run markaasay fiirist u dhaxeenayo
qofku xisaabta markuu isku dhufto waxa u soo baxaya qofku waa dareemaya anigoo 19 jir baan ku dhalay siyaabo badan bay ku timaadaa qofku labada qofood markay kaftamayaan oo kale waan dhihi karaa aniga aan 20 jir baan kugu dhalay oo nin 20 jir baan maxay garata qofku waxyaalaha qabsi ayaa jira Aisha markii waxa la rabay markii aabbu uu yiri 19 jir baan kugu dhalay anigoo 53 sano jir hadda farqiga ahaan inta u dhaxeynaysa wala dareemi karaa markii waxa la rabay in ay saxdo ma aysan sixinin duuduub bay ku soo gelisay isla ayadii baa hadana waxay tiri 23 sano jira daadii baa lagu qabsaday wixii baa la isku keenay xisaabti way inta markaan ka soo gudbo hooyay hadana wareysatay waxay tiri hooyay dadku waxay ku soo weydiiyeen qurbaha goorma soo gashay qurbaha ayaa la yiri qurbaha Ethiopia noqon kara Kenya noqon kara Uganda noqon kara wadamadan kale ee qurbana casku noqon kara inta ma jirtid waxay tii kaliftay in hooyo mar labaad inta soo fariisiso ay dhahdo hooyo intaas oo magac Ilaahay ay ku dhaarato maxay kalifay in hooyo inta soo fariisiso heer waxay gaadhay ilaa maamadii hooyo la soo fariisiyo oo la dhaarsiiyo waa wareer baraha bulshada wareerkeeda iska badan dad baa raba dad baa jira wax yar qalad iyo qalad ma is arkeen waxay ka faa'iideysanayaan views shalay aabaha intaasu yiri adigana intana leedahay maxaa ka jira way is yareynaysaa adigu waati social media mar gabadhan aad loo watay qofka bid'aadanka markuu yiraahdo intaan baa jira waa la aamusa waqtiga dhalisay ma fadhide waa maya maxaa ka quseeya waa maya maba la isku mashquuliyo bid'aadanka in lagu mashquulo horta ma fiicna Soomaali hadaan unahay waxaan jecelnahay inaan ku mashquulno ma fiisraadisba bid'aadanka in aad ugu mashquulno ayaanu jecelnahay Soomaali mar hadaan unahay marka Aisha Aziz waxaan leeyahay eedo mar labaad iska ilaali baraha bulshada waxa soo gelinaysid fudadna ay ku qaadin ka fiirso aad uga fiirso ha ku fududaan waxa soo gelinaysid meeshan waxa la dhahaa social media hadaa iska ilaalin sida badda kula tagaysaa way ku qaadaysaa adiga maasha Allah horta maasha Allah Ilaahay ku siyaadiyo gabar asturan baa tahay gabar dhaqankeeda haysataa baa tahay gabar walaaladeeda ka yar saa u haysaa tahay gabar gurigood iyo hooyadeed la joogtaa tahay Ilaahay hanee siyaadiyo intii xun Allah naga reebo waan ducaynaya idinka iyo gabdhaha Soomaaliya oo dhan caruurta Soomaaliya oo dhan wixii xun Allah naga hayo intii qeyrka Allah nagu soo jeediyo intii qeyrka qabto Soomaaliya shay laagta ha iloobina shay laagta subscribe ka ha iloobina qeyr iyo bashbash baan rajaynaya Soomaaliya sida iyo kulanti dambe oo xiisa badan leh fariintan waxay ku socotaa Aisha Aziz iska ilaali baraha bulshada hadda magac baa ku leedahay maasha Allah gabdhaha inta qiimo leh baraha bulshada ku jiro baa ku jirta oo qiimaha wata ayaa ku jirta is ilaali hadda waxa sameysay male sadan hadaa jirtidna adaa jira 33 hadaa ka yartahayna adaa jira ceeb aa sameysay male maasha Allah marka waxyaalaha geefka iyo kugu iman mar dambe bid'aadan baa tahay wixii geefa Ilaahay naga ilaaliyo bid'aadan baan nahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh